xasan sheekh maxamuud sababaha uu yimid magaalada muqdisho waxa uu ku sheegay inuu wada tashiyo samayn doono taas oo ku salaysan xaaladaha hadda dalka uu ku jiro xogaha aan helayna waxa ay sheegayaan in imaanshaha xasan sheekh maxamuud ee magaalada muqdisho ay horboodayaan xildhibaano mucaarada iyo dowladda hadda dhisan iyo shakhsiyaad kale oo dhaqaale ku bixinaya yagleelidda xisbi weyn oo ay ku midaysan yihiin raggii la soo shaqeeyey xasan sheekh maxamuud iyo xubno kale oo mucaarada arrinta kale ee keentay imaanshihiisa ayaa ah inay heleen warbixinno la xidhiira in madaxda talada haya ay wadaan qorshe muddo kororsi ah iyo in la xadido tirada xisbiyada ka qaybgalaya doorashada soo socota si looga hortago xisbiye awood badan sida kan ay qorsheynayaan xasan sheekh iyo xulafadiisa xasan sheekh maxamuud muddadii u dhaxaysay 2012-2017 waxay isqabteen shakhsiyaad kuwaas oo qaarkood ay heshiiyeen intii uu ku sugnaa dalka dibaddiisa waxaa ugu horreeya axmed macalin fiqi iyo xubno kale iyo shakhsiyaad kale oo doonaya inay sameeyaan xisbi siyaasadeed oo weyn oo ay ku jiraan dad magac leh sameeyshada xisbigan waxa uu ka dambeeyay markii dawladda dhankeeda ay shaacisay inay sameynayso xisbi aad u weyn oo ay ku midaysan yihiin mas'uuliyiin kala duwan sida uu shaaciyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar xisbi weyn ilaahay baa weyn ayaan soo wadnaa oo xisbiyada oo madaxweynaha hormoodu yahay siyaasadii guushii Febraayo uu ku hogaaminayo marka hal iska jiro yaa haysliganina xisbiyada isdiiwaan galiyay yaanaan idin gaadin goor barqa ah idinkoo maaragtay weebaristi imaanshaha uu yimid xasan sheekh maxamuud magaalada muqdisho kuma koobnaan doonto muqdisho oo kaliya sidoo uu sheegay waxa uu tagi doonaa meelo kale oo dalka kamid ah maxay tahay sababaha uu u tagayo gobolada dalka muhiimadda ugu weyn waxay tahay inaan ogaado xaaladda dalka maanta uu ku sugan yahay maadaama aan muddo ka maqnaa ee dhinac walba leh dhinac siyaasadeed leh dhinac dhaqaale leh dhinac amni leh kadibna wixii tala ah oo mustaqbalka iyo sida loo qurxin karo ra'yigeeda iyo taladeeda siyaasadeed ayaan la imaan doonaa baryahan soo socdana insha Allah kulamo badan iyo wada sheekaysi badan ay yeelan doonaa haddii aan la yiraahdo intii talada uu hayay xasan sheekh maxamuud wuxuu door weyn ku lahaa dhismaha maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle laakiin madaxdii loo doortay maamuladaasi hadda xil kama hayaan oo mooshinno ayaa lagu riday dhismaha maamuladaas oo si sahlan lagu galay ayaa keenay in isjijiid badan oo beelaha dhexdooda ah waana tan keentay in xasilooni darri siyaasadeed ay ka dhacdo maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle xilalkana laga qaado madaxdii hore loo doortay haddaba maxay tahay waxyaabaha iminka ku soo beegay in xasan sheekh maxamuud uu yimaado magaalada muqdisho maxayse ka dhigan tahay imaanshihiisa waxaan su'aalahaas aan weydiiyay siyaasi Ciidruus Maxamed Afsagaaro oo ku sugan magaalada muqdisho horta markii gudahaan la fiiriyo wadankiisa uu imaan karaa laakiin waxay xambaarsan tahay sida ay leeyihiin dalka iyo dowladda siyaasadeed arrintaas siyaasadeedna waa mid khayaaliya xasan sheekh waxaa lagu xusuusta maamul badan laguma xusuusto wuxuu dalka u qabsan lagu xusuusto gaajo baahsan iyo dhibaato fara badan iyo maamul xiran ayaa lagu xusuustaa marka khayaali waa marka wuxuu yihiin dad baa dalka ka riixaya marka qodob fashil siyaasadeed ku jira niman gobolada maamuli kari waayey baarlamaanka markay ku jireen siyaasad jahada meel loo dhaqaajiyo la garan karo wadankaba dadu ka dhaqaaqanaya inay hadda soo celiyaan dadka midkii dalka la haray waxdaba samaynayso ceeb siyaasadeed waa xushmad la'aan waxa aad loogu amaanaa xasan sheekh wanaagsanaantiisii siyaasadiisii arrimaha dibadda waxaana jira dhaliilo badan oo kaga imaanaya siyaasadiisii arrimaha gudaha taas oo caqabado badan keentay